dhuusamareebeed oo suurtageliyey xafladan taariikhiga ah ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb caawa. dhammaan madaxda reer galmudug oo ugu horeeyo sheekh shaakir waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin. caawana haddii ay cidishaki uga jirtay inay dhuusamareebi tahay magaalo madaxda galmudug soo daawo caawa dhuusamareeb iyo xafladda ka socota. juun waxaan nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo xafladdii xorriyadda gobollada waqooyi ee dalkeenna. habeenkaas iyada ah waxaan ka codsaday madaxda iyo shacabka reer galmudug in si dhuusamareebe ay u noqoto magaalo madax loo dhan yahay inay soo buuxiso shuruudaha magaalo madaxnimada oo ah in dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ay ka howlgalaan magaalo madaxda galmudug oo ah dhuusamareeb. caawa waxaan ku faraxsanahay kana mahad celinayaa ugana hambalyaynayaa reer galmudug in codsigaygii uu aqbalay sheekh shaakir isagoo ku hadlaya magaciina. sidaas daraaddeedna aan caddaynayo in gobashii dib u heshiisiinta ay taallo magaalada dhuusamareeb. وما شكل عاوة وهبنكي الوهسي كود الليلي لبعض مدولي عاوة وحمدولي شعبك هي دولة جمهورية كلمة هي دولة الفدرال كصوماليا. waxaan u hambalyaynayaa dhammaan reer galmudug dadaalka ay muujiyeen. waxaan faraynaa hay-adaha amniga dowladda federaalka inay bilaabaan inay qabsadaan shaqadooda si loo suurtogeliyo gobasha dib u heshiisiinta iyo doorashada. shaqaduna ma aha isbuuca soo socda ama bisha soo socota, waa inay bilaabaan maalinta berri ah isla soo diyaargareeyaan. intaas kadib waxaan sidoo kale soo gaarsiiyey inaan caawa halkan ku xafladayn karno. waa wiilal Soomaaliyeed oo halyeeye ah oo cadowga ka xoreeyay gobolkan loogana baahan yahay inay dalkoo dhan ka xoreeyaan. waa geesiyaal reer galmudug. waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto, jannadana Allah ka waraabiyo. inta kalena waxaan ugu bishaareynayaa in berrita la bilaabi doono jidkii lagu qaramayn lahaa sidaad uga mid noqotaan ciidamada federaalka Soomaaliya.
maanta waa maalin weyn waxaan leeyahay kooda luuliyo waa maalintii ugu wanaagsaneed oo ay taariikhdani ku soo aadi lahayd sababtoo ah kooda luuliyo waa maalin ku weyn qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waa maalintii aan gumaysiga ka xorownay waa maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed waa maalintii ay dhaqan gashay midnimada Soomaaliya waa maalintii uu yiri abwaan Cali Ibraahim Idle kurbadii gumaysiga Soomaaliya kadeedkii kacaakufkeennii iyo kala xirnaantee dharaartaad ka gudubteed labadii kalmaha jiray isu soo ku deeno kuu noqotay weeye kaalaya dadweynow aqallada ka soo baxa waa koodii luuliye walaalayaal xornimada aan maanta u dabaaldegayno ma ahan mid si sahla ku timid waxay ku timid halgan dheer iyo adkaysi badan waxaa loo soo daadiyey dhiig badan sida dagaalkii dhagax tuur nafo badan ayaa god u galay sida dagaalkii Axmed Gurey hanti badan baa loo huray sida kacdoonkii SYL ee ha noolaato qaar badan baa la goodoomiyey sida halgankii sayidka ee daraawiishta dad badan baa meel fagaaro ah lagu daldalay sida Sheekh Bashiir Allah u naxariista dad badan baa loo xiray oo xabsi u galay sida Sheekh Xasan Barsame dad badan baa darteed xornimadaas loo masaafuriyey sida Xaaji Faarax Omar iyo Maxamuud Xarbi waxay naga mudan yihiin inaan u duceyno ka sokow inaan weynayno taariikhdeennu waxay ku maamuustay in loo dhiso qaarkood taalooyin ama loogu magac daro waddooyin ama xarumo ciidan caawa waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiinna ka caddeeyo iyadoo ka turjumaysa soo kabashada dalkeenna ku dhowaad 30 sano kadib in taalooyinkii iyaga ahaa ay dawladdu bilowday inay dib u dhisto qaarkood dhammaystay qaar kalena ay dhismo ku socdaan taasoo ka turjumaysa way soo laabatay dalkii iyo dawladdii Soomaaliya Allah u naxariistee halyeeyadaasi rag iyo dumarba waxay u naf waayeen si aan uga dhaxalno xornimo iyo wadaninimo waxay u naf waayeen si annagu caawa halkan aan ugu caweyno waayo waxay ogaayeen waqtiga iyada ah inay isku dan yihiin inay isku dal yihiin oo aanay dal kale lahayn inay isku dad yihiin inay isku diin yihiin inay isku cadow yihiin waxay ogaayeen inay xidid yihiin inay xasabo yihiin inay xunduro isku yaal yihiin waxay ogaayeen inay isku qasban yihiin mustaqbalkana ku qasban yihiin waxaa kaloo fahamsanaayeen waqtigaas isaga ah 59 sano ka hor in midnimadu tahay xoog kala taguna yahay hoog in midnimada lagu joogsado kelina lagu kufo in marka quluubta laga midoobo ay gacmuhu midoobayaan in midnimada iyo guushu ay wada dhasheen waayo meesha ay midnimo ka jirto ayay guushu jirtaa in midnimada
ay tahay sida keliya oo wadaan ceel looga bixin karo in kelidu tahay dhibco roob ah midnimaduna tahay daad xooggan oo aad wax isaga celin karto waxaa kalooy wakhtigaa fahamsanaayeen si ay isaga dhiciyaan dowladiidka iyo kuwa shisheeyaha u adeega waxay fahmeen wakhtigaa isaga ah 59 sano ka hor oo ay noo reebeen in hadalka beenta ah lagu dhegaysto dheg been ah in si xun waxusheegu uu sixir ka darna in beenlowgu uu wakhtigaa ahaa faalalow welina uu yahay waxay noo sheegeen inaan la aqbalin kuwa raba inay dariiqa naga leexiyaan waxay dhowri jireen sharafta iyo karaamada waxay dhowri jireen sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxay nooga tageen xorriyad iyo sharaf oo inagu aamineen oo la rabaa inagu inaan sii wadno wakhtigaa isaga ah waxay fahamsanaayeen inay dawladdu tahay sidii ceel biyood waayo dadka iyo dunyada u baahan inay ceelkaas ka cabaan kama cabi karaan haddii aan wadaanta la isla hayn dawladduna ma dhismayso haddii aan shacabkeedu gacmaha ka hayn galmudug waxaa laga rabaa inay dowlad goboleedkeeda la shaqayso si dowlad goboleedka galmudug u dhismo una hana qaado inkastoo 59 sano laga joogo maalintii xorriyada ah ay dhalatay xorriyadaasi weli waxaan ku jirnaa adkeynta xornimadaas isu keenida dadka Soomaaliyeed oo caawa aad halkan ka maqlayseen tusaale ka mid ah tallaabooyinka aan hore u qaadayno weli waxaan hor taagan caqabadihii iyadoo adduunyaduna ay ka sii horumartay 59 sano ka hor sidaas daraaddeed midnimadii iyo geesinimadii dhalinyaradii dhaliye xorriyadaas ay lahaayeen oo laba jibaaran ayaa looga baahan yahay wiilasha iyo gabdhaha horteyda fadhiya caawa sababtu waxa ay tahay dalkani waxa kaliya oo dhibka ka saari kara dadkiisa waa in dadkiisu ay fahmaan marka sida kaliya oo looga bixi karo dhibkaas waxay tahay inay Soomaali gacmaha isqabsato in la isu dulqaato in la isu tanaasulo in la iscafiyo in kuwa naga dambeeya oo ciyaalkeena ah mustaqbalkeena ka wanaagsan loo reebo in danta guud oo Soomaaliyeed laga hormariyo danta gaarka in kuwa diidan dalkani inuu hore u maro intaan istaagno kulligeen aan ku niraadno cod dheer waa idinka diidnay waa la soo dhaafay wakhtigaas waa muhiim in awoodda ay shacabka Soomaaliyeed gacmaha ku qabsadaan caawa walaalayaal waa habeenkii xorriyadda gaar ahaan waa habeenkii midnimada haddaba waxaan leeyahay danta aanu midowno dowladnimada aanu midowno nabadda aanu midowno cadowga aanu midowno dhismaha dalka iyo horumarkiisa aanu midowno mustaqbalkana aanu midowno sababtoo ah iftiinkan caawa bilowday keliya waxaa lagu xajin karaa midnimo ugu dambeyntii
usbuuc ka hor markii aan ka soo baxayay magaalada muqdisho waxaa la siiyey talooyin badan inta badanna waxay ahayd ha isku tegin galmudug waad ku soo fashilmaysaa ha isku tegin ma midoobayaan ha isku tegin heshiis ka dhici maayo ha isku tegin magacaa kaaga xumaanaya waxaan rabaa inaan idiin sheego markay sidaas ilahaayeen idinkaanay idin garanayn reer galmudug waxa ay ka samaysan yihiin ay garanayn inaad khalad u sababta ay iigula talinayeen ha isku tegin waxay ahayd reer galmudug baanay aqoonin geesiyaasha ay yihiin aanay garanayn waxay ka samaysan yihiin ayaanay fahmin waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad tidhaahdeen been baad kula taliseen ra-iisul wasaaraha ugu dambayntii waxaan leeyahay waxaa mahad mudan dhammaan shacabka reer galmudug gaar ahaan dadka qaybta ka ah dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan kuwa igala shaqeeyey inaan meeshan soo gaarno oo berri noo suurto geliyey shaqo cusub inaan bilowno laakiin waxaan rabaa inaad u istaagtaan u sabcisaan u mahad celisaan qofka istaahilo bilad geesi caawa oo ah sheekh shaakir kaasoo ka shaqeeyey midnimada halka aan ka sheegnay waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro shacabka reer dhuusamareebeed kuwa reer cadaado kuwa reer caabudwaaq kuwa reer huurshe kuwa reer xeraale iyo kuwa aan u socdo oo aanan weli tegin oo aanu tegi doono kulligood waxaan rabaa inaan u sheego waa ku mahadsantihiin sidaad ii soo dhowayseen dadaalkii aad ka shaqayseen midnimadii ee uu dhalay waa idinka faa'iidadeedii caawa halkan uga jeedo waxaan rabaa sidoo kale inaan u sheego waa muhiim inta dhiman in la dhammaystiro in laysu dulqaato in gacmaha laysku soo dhoweeyo galmudug midaysan tayaysan toosan waa sida keliya shacabka iyo dhallinyarada reer galmudug ay ku heli karaan adeegyada ay nooga baahan yihiin ugu dambayntii waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan oo shaki ka qabay dalku midnimo ma gaari doonaa dowladnimadu mahanad qaadi doontaa oo aaminsanaa galmudug lama xallin karo waxaan rabaa caawa inaan idiin sheego waa 1 luulyo waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego soomaaliya mustaqbalkii iyo maalmihii ugu fiicnaa way naga horeeyaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu